maalin wanaagsan daawadayaal waxaan rabaa inaan halkan idinka dabageeyo dagaalkii shalay bilowday ilaa iyo haddana socdo halka ay wax kala marayaan iyo jabka khawaarijta gaaray iyo guulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaankuba ay ka soo hooyeen dagaalkaasi ilaa iyo hadda ka sii dhacaya gudaha gobolka Shabeellaha Dhexe inaan idinka dabageeyo rabaa soo dhawaada share gareeya hal la wada caweeyo dagaal shalay barqadii bilowday kadib markii kooxda argagixisada ah ay ku soo duuleen ama duulaan saf balaaran ah ay ku soo qaadeen macwiisley ku sugnayd gobolka Hiiraan taasoo ugu dambeyn dagaal xoogan isku rogay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka Hiiraan iyo macwiisleydu isgarabsanayana ay halkaasi ka galeen socday ilaa iyo xalay saaki aroornimadii dib u bilowday ayaa xilligan waxa uu ka socdaa duleedka degmada Aadayabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa macwiisleyda ee dagaalkaasi qaybta ka ah hogaaminayana xilligan waxay xabadu ka socotaa duleedka degmada Aadayabaal iyadoo la isla dhaafay deegaanka Tawakal oo afka Aadayabaal ah isla markaana difaac u ahaa kooxda argagixisada ah ee halkaasi joogto xilligan oo ay xabadu duleedka degmada Aadayabaal ka socoto ciidamada macwiisleyda aan halkaasi la hadlay waxay ay xaqiijiyeen in meeyda tirabeel ah oo 100 ku dhow baqtigii khawaarijtana ah xilligan macwiisleydu ay ka dul talaabsadeen waxa la ay sheegay in 40 qoryaha fudud ah isla markaana ka lagu dagaalamo ah dhowr 7 iyo dabajeexyaba gacanta looga dhigay taasoo ah qaniimadii laga qaatay kooxda khawaarijta arxagga daran ee ku soo duushay deegaanada gobolka Hiiraan argagixisada oo muddooyinkanba iska soo urursatay dhammaan deegaanada ay ku sugan yihiin gobolada dhexe ayaa shalay waxay isku soo programiyeen ama ay soo go'aansadeen iyagoo gaaraya tir ahaan ama lagu qiyaasay 2,000 oo maleeshiya in ka badan in ay gobolka Hiiraan jiraan oo ay xoog ku dardaraan balse maanta waxay xisaabinayaan qasaaro aysan hore u sii saadaalinin oo ka soo gaaray dagaalkii xoogana ee muddada 40 saacadood ku dhow halkaasi ka socda ay kula galeen ciidanka xoogga macwiisleyda iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed xilligan waxa la qorsheynayaa in degmada Aadayabaal dagaalku daafaheeda uu ku fido sida ay noo xaqiijiyeen shacab duleedka degmada Aadayabaal ku dhaqana gawaari tirabeel ah oo dhaawacyo iyo baqtiba sida ayaa ka baxay degmada Aadayabaal halkaas oo ay isku hay waayeen kana baqeen in gacantooda laga faroomarojiyo degmada Aadayabaal oo hadda dagaalku uu kulaalayo cirifyadeeda wixii ka soo kordha halkan ayaad kula wadaagi doonaa wali internetku lama helin oo dhankaasi waa dhul miyi ah oo internet oo anteenadu ku adag tahay muuqaalada ka yimaada ee baqtiga iyo hubka laga furtayna dib baan idin kala wadaagi doonaa